السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهيكسي channel ومركل يمقال عصب يمنح عصب ما أنتم حدي وضع منحة آد وقالئة أو طبعا وحياة بدنا كفايدهم تان قفكي هلا دو ألد ميلها أفضيه balse intaan u guda galin waxaan rabaa inaan idin sheego marka hore channelkan wuxuu u furan yahay hadduu alla idin idin soo gudbiyo minxooyinkii ugu dambeeyay ee ay bixinayaan dawladaha iyo jaamacadaha dunida ku yaala kuwada ugu magaca weyn leh waliba inta loo guda jiro bishan December ilaa bisha January oo ah inta badan xilliyada ay soo baxaan scholarshipska ama minxooyinka marka haddii aad danaynayso fadlan subscribe saar channelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo galino sidoo kale haddii uu jiro saaxiib aad ogtahay inuu raadinayay inuu helo minxo ama uu danaynayay fadlan u sii share gareey muuqaalkan si aan u faafino faa'iidada waad mahadsan tahay haddaan guda galno minxadeena maanta minxada waxaa bixinaysa dawladda Thailand jaamacadda waa jaamacadda loo yaqaano Vidya Sermedi Institute Vidya Sermedi Institute jaamacadaas waa jaamacadda magaceeda waana jaamacadda ugu xoog badan dalka Thailand dawladaha soo dalban kara waa dhammaan dawladaha meel walba aad joogto minxadan waa soo dalban kartaa heerarka waxbarasho waa master iyo PhD dabcan kuma jirto bachelorka marka waa master iyo PhD ardada rabto ma soo dalban karta haddii inta oo nimaano warbixinta ama xogtaas waxaan u guda galaynaa waxyaabaha ay gaar la tahay minxadan waxyaabaha u doortay minxadan inaan ku soo gudbiyo waxay tahay waxyaabo waxa ku jira ay gaar la tahay oo ay kamid tahay waxyaabaha ardayga laga rabo oo aad u fudud iyo waxyaabaha ardayga uu helayo oo faa'iidooyin ah oo dabcan aad u fara badan xaqiiqatan qofka Ilaahay ku guuleeyo haddii aan ku hormarno waxyaabaha ardayga uu helayo ay minxadan kaga duwan tahay minxooyinka kale waxay minxooyinka horta kala siman tahay in waxbarashadu ay bilaash tahay guud ahaanba labo waxaa jirta mushahar ardayga uu qaadanayo hadaba mushaharkan ila arag mushaharka bil walba aad qaadanayso wuxuu u dhaxeeyaa $14,950 ilaa iyo $44,420 dabcan lambarkan aad u weyn yahay 14,000 ilaa iyo 44,000 marka maaha bille waa inta uu socdo barnaamijka waxbarashadaada labada sanaba lacagtii aad qaadanayso weey waxay u dhaxaysaa $14,950 ilaa iyo $44,422 iyadoo ku xiran markaas barnaamijka aad baranayso marka barnaamijyadu way kala qaalisan yihiin marka waxa laga yaabaa arday walba inuu arday kale kaga duwanaado iyadoo loo fiirinayo barnaamijka ardaygan uu baranayo lacagta aad qaadanayso waxay ku xiran tahay barnaamijka aad baranayso midan 14,000 ah haddii aan u qaybino calaa bil $14,950 haddii aan u qaybino 2 sano dabcan waa 24 bilood waxay noqonaysaa bishiiba $622 ku dhawaad tan kale haddii ayadana qiimeeno 44,422 haddii aan u qaybino 24 bilood waxay noqonaysaa ayadana lacag dhan $1,850 marka waa lacag aad u fara badan waana sababaha u doortay inaan ku soo gudbiyo minxadan oo xaqiiqatan laga aad u yar in aragto minxayada la mid ah dhanka taageerada dhaqaale ardaygu uu helayo sidoo kale ardaygu wuxuu helayaa haddii ay jiraan waxyaabo baaritaan ama research aad sameynayso inta badan ardayda masterka ama PhD ay sameeyaan waxaa jirta lacagta ku baxaysa baaritaankaas adigu ma bixinaysa jaamacadda ay kugu taageeraysa waxayna u dhaxaysaa $9,871 ilaa iyo $24,679 oo taageero ah dhanka researchska iyo haddii aad baaritaan sameynayso lambarkan kale $300,000 ilaa $750,000 waa lacagta Thailand laakiin anaga waxay xooga saaraynaa dollarka marka haddii ay jiraan baaritaano aad sameynayso aad u baahan tahay ardaynimo lacagta adiga kaaga baxayso jaamacadda ayaa kugu taageeraysa taasna waa mid ay gaar la tahay minxadan
saddexaad waxaa laga yaabaa marka qaar inaad u baahato inaad aado waddan ka baxsan Thailand adoo kasoo qaybgelaya conferences ama waxa loo yaqaano shirar iyo mu'tamaraad lacagta safaradaas waxaa bixinaya jaamacadda waxaan lagu siinayaa lacag u dhaxaysa $1,645 ilaa iyo $4,935 lacag u dhaxaysa ayuu ardaygu helayaa waa haddii aad u baahato macnaha qasab ma in lacagta hesho mar walba waa haddii macnaha aad u baxdo safar dhanka ka baxsan Thailand adoo kasoo qaybgelaya safaro iyo waxyaabo noocaas marka qof kasta maaha inuu qasab inuu helo macnaha waa qofkii kaliya baaritaan ama mu'tamaraad u aadaya Thailand dibadeeda ama Thailand gudaheeda magaalooyin kamid ah safarka waxa ka bixinayo ka qaabiliya jaamacadda iyadoo aad helayso lacag u dhaxaysa $1,645 ilaa iyo $4,935 iyadoo ku xiran barnaamijka markaas aad baranayso sidoo kale waxaa jirta lacag aad qaadanayso oo ah $987 oo loogu talagalay inaad ku iibsato haddii aadan haysan laptop book iyo dhammaan wixii kala yaryar aad u baahan tahay ardaynimo waa ayadana minxadan ayaa gaar la ah sidoo kale waxaa jirta lacag lagu siinayo oo gaaraysa $32,905 oo ah tan waxay gaar u tahay ardayda PhD-da kaliya oo master kuma jiraan waana qofka markii u baahdo inuu baaritaano cilmi baaris fara badan u baahdo kadibna ay noqoto baaritaanada cilmi baarista inuu soo sameeyo wadamo ka baxsan Thailand taasoo kale safarkaas waxaa taageero kugu siinay jaamacadda iyadoo aad qaadanayso lacag ku dhow $32,905 tanna waxay gooni taabaniri ardayda PhD-da oo kaliya sidoo kale haddii aad rabtid inaad ka qayb qaadato sportska kooxaha kala duwan ee jaamacaddu leedahay iyo waliba barnaamijyada ardaydu qabato waa ka qayb qaadan kartaa ayadana sidoo kale takhasusaadka inta badan ee teknolojiyadda la xiriirta information technology IT iyo sidoo kale engineeringka waa available caafimaadkana sidoo kale marka website jaamacadda ay kasoo eegi doontaa laakiin inta badan engineeringka computerka iyo teknolojiyadda iyo sidoo kale caafimaadka intaba waa heli kartaa haddaba maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa CV 2 transcript ama warqad ay ku qoran yihiin dhibcaha maado walba aad keentay 3 shahaadadii jaamacadda haddii aad rabto PhD waxaa laga rabaa master iyo bachelor haddii aad rabto inaad master baratana waxaa laga rabaa shahaadadii bachelorka sidoo kale waxaa laga rabaa waxa loo yaqaano proposal letter oo ayadana halkan aad kala soo degayso macnaha jaamacadda waxa way ku fududeysay halkan ayaa kala soo degaysaa qaabkan ayuu diyaarsan yahay halkaas page ayaa ku qoraysaa warqadan la yiraahdo statement of purpose formkana waxa weeye waxa ku buuxinaysaa oo kaga jawaabaysaa maxaad u dooratay muxuu ahaa minxadan haddii aad hesho maxaad uga faa'iideysanaysaa iyo su'aalo lamid ah halkan page ayaad ku qoraysaa kadibna title-kaaga gabadhii wiil waxaa tahay magacaaga koowaad magaca dhexe magaca ugu dambeeya saxiixaaga iyo taariikhda waa intaas uun marka wax walba waa lagu fududeeyey oo xitaa way kuu diyaarisay jaamacaddu warqadii aad kusoo qori lahayd marka meel kale kama raadinaysid waxaa kaloo lagaa doonayaa waa intaas uun waa CV transcript iyo shahaadada iyo warqadaas proposal formka haddaba sidee u dalbanaysaa sidee u buuxsanaysaa sidee u xariisanaysaa minxadan way fududahay waa online application aad u fudud xaqiiqatan kana duwan minxooyinka kale oo dhan waqtiga ugu dambeeya ee aad buuxsan kartana waa 15 January wixii ka dambeeya way xirmaysaa 15 January macnaheedu hadda waxa weeye waxa ka dhiman 29 bil ka dhiman ayaad haysataa inaad ku buuxiso haddaan u galno dhinaca applicationka qaab qofka marka raba inuu warbixinada aan sheegay uu hubiyo inay sax yihiin in kale wuxuu booqan karaa website-ka jaamacadda ayuu booqan karaa waa Fistech University halkaas ayuu ku ogaan karaa dual inay waxaan run yihiin in kale
haddaan gala applicationka apply now kadib waxaa noo soo baxaya qaabkan daaqadan ayaa noo soo baxaysa saan idin sheego waa application aad u fudud waana online kaliya asaga waa xariisanaysaa waa diraysaa kadibna nasiibkaaga ay sugaysaa kow waxaad dooranaysaa iskoolka aad rabto ama waxaad rabto inaad barato kasoo qaad waxaan rabaa inaad barto information science and technology kadib degreega dabcan waa waxaan doortay master wuxuu leeyahay programkan waa 2 sano 2 year okay program kadib magacaaga koowaad maxamed cali wax lagu dhaho markaas surnameka waa magaca aabaha iyo magaca awowga oo wada socda asagana genderka lab iyo dhadig wixii aad tahay markaa waqtiga aad dhalatay iyadana waa soo halkan ku qoraysaa lambarka guriga ama xafiiska markaas aad ka shaqeyso iyo sidoo kale mobile numberkaaga labadaba adresska oo ah gobolka wadanka iyo magaalada markaas aad degan tahay halkan ay ku qoraysaa kasoo qaad waxaa leedahay Banaadir Muqdisho Soomaaliya waa haddii aad joogto gobolka Banaadir emailkaaga kadib markaad buuxiso informationkaas adiga ku xiriira kadib waxaa laga rabaa documentiyada soo gelinaysay halkan waxaa ku qoran PhD master iyo bachelor haddii aad tahay arday dalbanaya master dabcan waxaa soo gelinaysaa shahaadadii bachelorka haddii aad tahay qof dalbanaya PhD waa in aad soo gelinaysaa shahaadadii masterka iyo PhD bachelor labadaba marka hadda master ayaan kasoo qaad buuxsanaysaa waxaa sameynaysaa kaliya waxaad haysataa markaas bachelor waxaad ku qoraysaa college-ka ama jaamacadda aad ka qaadato magaceeda kadib majorka iyo qaybta aad baratay civil engineering general medicine electrical engineering adoo majorkaaga ayaa ku qoraysaa kadib GPA-ga aad ku baastay GPA-ga haddii shahaadada ku qoran tahay boqolley way fududahay qaabka loogu bedelo GPA kadib halkan ku qoraysaa GPA-gaaga kadib shahaadada xilliga aad qaadatay iyadana halkaas ayaad ku qoraysaa ugu dambeynna shahaadadii ayaa soo gelinaysaa ayada iyo halkan ay kaga soo daraysaa shahaadadii aad ayaa leedahay shahaadada taalimo kadib markaa intaas samayso halkan waxaa yaala required documents oo kuwa ay qasab ka tahay curriculum vitae waa CV-ga transcript-ga iyo statement of purpose-ka aan idin sheegay in aad la soo degayso oo qaabkan aad u qorayso saddexdaasba waa laga rabaa marka saddexdan hal document ay isku geynaysaa oo aan ka badnayn 10 MB waa CV-ga transcript-ga iyo statement of purpose-ka hal document oo markaas word ah ama zip ama rar wixii ahaataba ama PDF ay isku geynaysaa waa inuusan ka badan 10 MB qaybta labaad waa optional waa qasab maaha laakiin haddii aad soo gelisana waa janiskaaga ay badanaysaa inaad ku guuleysato letters of recommendation oo ayaan hore u sharaxna waxa laga wado haddii ay haysato shahaado luqadeed xag oo luqadda Englishka ah sida TOEFL ama IELTS iyadana sidoo kale haddii ay haysato shahaado sharafi ay haysato ama shahaado sharaf iyo aad hore u qaadato kadib jirto waa soo gelinaysaa waa optional laakiin waxaas oo dhan waa optional waa inta kaliya bas wax kale lagama rabo su'aashan waxaan ku weydiinayaa sida ku maqashay physics admission ka sida ku maqashay waxaad dhihi kartaa social media ayaan ka maqlay kadib ugu dambeyn waxaa ku qoran remark haddii aad hadal iyo aad hayso macnaha aad u talgashay inaad jaamacadda wax ku sharaxdo kale halkan ayay ku qoraysaa haddii aadan hayn markaasna waa submit marka waxaan rajeynayaa ka faa'iideen fadlan haddii aad rabto inaad hesho minxooyin fara badan ayagana oo soo socda hadduu alla sida dalalka Turkiga Azerbaijan Qatar Imaaraadka waan soo wadnaa channelka subscribe saar sidoo kale waa muhiim fadlan asxaabtaada la wadaag dad badan ayaa u baahan marka asxaabtaada la wadaag waa mahadsantihiin